السلام عليكم داوديال. halkani waa Haga Academy hoyga tacliinta tiknoolajiyadda iyo horumarinta aadamiga. Ku soo dhawaad casharkeena afraad ee barashada kombiyuutarka iyo isticmaalkiisa. Hore waxaan ku soo qaadanay cashar aad iyo aad muhiim u ah oo aan uga hadlaynay sida loo sameeyo folder, loogu shubo file iyo waxyaabo fara badan magaca looga bedelo, sida meel looga qaado meel kale loo geeyo iyo waxyaabo fara badan oo muhiim ah ayaan ku soo baranay oo haddii aadan kuwa si fiican u soo fahmin laga yaabo inay kugu adkaan karto casharka haddana ka muuqdo hortaada. waxaan halkan maanta ku qaada dhigi doonaa contacts ama objectives aad iyo aad muhiim u ah oo daba yaala casharkii hore daba socda. waxaan aad iyo aad u rajeynayaa inaad si fiican u fahmi doonto kii horena si fiican u soo fahantay maadaama aan arkin wax feedback ah oo aad soo celiseen oo ah ama tala ah ama tusaale ah ama haddii la kula casharkiina aan fahmin ama fahanteen ama iyo waxa soo celisay jirin. waxaan aad iyo aad idinkugu dhiirinayaa idinkugu boorinayaa in aad la socotaan casharkan oo aad wixii aad fahmi weysaan dib u soo celisaan feedback-ga. waxaan ku leeyahay ku tixno halkan objectiveskeena maanta aan qaadanayna waxaa ka mid ah oo ugu horeeya hore waxaan soo baranay file sida loo abuuro sida folder loo abuuro ayraade file loogu shubo. bal maanta waxaan baranaynaa staging filekii aan soo abuuranay bal inaan raadino ama folderkii aan soo baranay raadino. laba waxaan baranaynaa start button menu-ga iyo hababka loo isticmaalo. waxaan ka casharkeena markasta casharkeena wixii ka dambeeya baraatiga u badan doonaa inta computer laga fahmayo. waxa noogu xiga hiding and showing and resizing icons, in la qariyo iconadii lana soo saaro haddana resizing lagu sameeyo. waxaa noogu xiga arranging icons ka noo saaran shada inaan habayno. keena ugu dambeeyana waxa weeye switching of computer, switching off meeshaas waxaa ka maqan hadee la kuulaya f kala ka maqan sorry, switching off computerkii inaan damino hagaag. sida hore kugu sheegay casharkeena wuxuu u badan doonaa practical ayuu u badan doonaa. waxaan isla tegaynaa shaashada computerka isla tegi doonaa iyo qaybta practical aan ku sameynayna. welcome. maanta dhaweetay waxaan soo noo maraya casharkeenu annagoo soo fahnay sida file loo abuuraayo, sida folder loo abuuraayo, kadibna file loogu shubayo aan soo baranay. bal maantana aan fiirino filekeena inaan baarno oo aan raadino kadibna aan bal sida aan ku sameyn karnaa aan ku sameyno ama aan akhrisano ama aan soo furano sidaas aan u sameyno. bal maanta waxaan abuuranaynaa folder, waxaan ugu shubanaynaa file soo dhawo marka folder dad xasuusto ku dharaamaya sidaan ayaan u abuureynay tartiib ayaan casharka uga wadayaa. waxaan ku qoranaynaa magaca ayaan ula baxayno tusaalaan searching ayaan la baxaynaa. folderkan waan qaadaynaa maanduratu waan baranay kat ayaan siinaynaa kadibna waxaan la tegaynaa computerkeena si hadhow aan u raadino. waxaan kusoo shubanaynaa meel ka mid a folderradeena kale. tusaale waxaan dhiganaynaa document, folderkan document ayaan isaga dhex tuuraynaa. searching halkaas ayuu noo yaalaa. bal folderkan aan kusoo shubano halkan waxaa noo yaala sawirkan ayaa noo yaala oo aan doonayna maanta casharkiina aan ku baraatigeeno raadintiisa. waa homepage-ka hore ee website-ka Haga Academy ee dhawaan soo bixi doona binala cream. okay, kan ayaan qaadaynaa kadib asagana waxaan kusoo shubaynaa filekii hadda ayaan kusoo shubaynaa. bal aan kusoo shubno si casharkeena raadinskiisu iyo qaadidii ay muhiim noogu ahaato. hadda halka ayaan soo dhiganay. okay, aan ka soo noqono marka casharkeena aan u soo noqono searching file. sideen file u raadina? hadda waa aragtay folder ayaan abuuranay, file ayaan ku shubanay oo sidii marka hore aan sameynay ah. hadda waxaan rabnaa inaan raadsano filekeenii. halkan fileka kuma jeedid oo haddaad meeshaan file ka raadi maagtid ma arkaysid. si aan file u raadino fileka laba qaab ayaan u raadi karnaa. qaab waa qaabka haddeertaan oo inaan pc-ga tagno tala computerkeena iyo meesha xarunta computerkeena pc-ga ay ku jiraan fileelkayga oo meesha telefoonka ay my files ka tahay computer this pc oo kale waxaas ku qoran ama my pc oo kale ayaa tegaysaa kadibna ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato folderka meesha aad dhigatay folderkaaga ay raadinaysaa. halkan folderro badan ayuu kaaga soo saaraya. aan soo weyneeyo halkan folderro badan ayaa kaaga soo baxaya oo aad u baahan tahay inaad isticmaasho. okay, bal aan raadina folderkaan u baahanay iminka
aan halkaan tagno folderkan xaggaan dhiganaa daayada document aan dhiganay document markaan joogno aan tagno aan hoos u raadino folderkeena searching ayaan inta ka raadinaynaa folderkeena searching ayaan inta ka raadinaynaa rebiring searching waa kana folderkeena markaan furana filekeena waxaa noogu jira filekeena ama sawirkeena ayaa ku jira oo ah professional design.jpg gaan hore aan usoo baranay oo ah extensionski si kale halkan waxaan uga raadi karaa markaan halkaan imaado hadda waqti yar ayaa galay waad arkaysaa socod badan inaan sameeyay inta ayaan imaanayaa kadib waxaan ku qorayaa professional ayaan ku qorayaa markaan qoro halkan waxaan uga jeedaa inuu sawirka hore iga soo baxay asagoo size-kiisa la ii sheegayo type-ka iyo waa photos la leeyahay ayuu ii soo baxay markaan waxaan rabaa ayaan ku samayn karaa oo haddaan rabo magac ayaan ka bedeli karaa haddaan rabo qaadi karaa I can do whatever I want ayaan ku samayn karaa okay bal qaabka labaad ee sahlan aan fiirino halkan computerka meeshiisaan waxaad ka aragtaa search button meeshan waxaa ku qoran type here to search markaan muuska kor saaro fiiri maxaa ku ka muuqda type here to search halkan ku qorsa aad u raadiso halkan ayaan click siinayaa kadib markaan ii soo baxdo waxaan qorayaa tusaalaan folderkayga ayaan qorayaa haddaan u baahanahay searching ayaan leeyahay waa kan halkan ayuu ka soo muuqda fiiri maxaa ii muuqda searching aan dhamaystiro halkan uga jeedaa waxaan u jeedaa file folder weeyaan file ku dhex jira weeyaan haddaan rabo ka waran sawir keliya aan raadsado maxaan leeyahay keliya professional ayaan qorayaa oo magacii ku qoraa ah professional halkan ayaad uga jeedaa professional design okay labadooda kaa duuntid ba aan fiirino ama aan kan kala fiirino oo searchingka ah ama hadday la kuroon yahay kan aan fiirine wuxuu kuusoo saarayaa few points xoogaa yar ayuu kuusoo saaraya oo details ah halkan waxaad aragtaa folderkan wuxuu ku leeyahay halkan ayuu ku yaalaa oo ah file folder weeyaan oo folderka oo filekan folder ayuu ku dhex jiraa folderkan okay locationka uu yaala ayuu ku tilmaamayaa meeshan wuxuu ku leeyahay sida qaybta sida computerka yaala wuxuuna ka siiyay userska wuxuuna ka siiyay qaybta adminka wuxuuna halka ka siiyay documentska halka shay ugu tagaysaa ku leeyahay halkan wuxuu ku sheegayaa last modified markii uu dambeeyay halka lagu biiriyay waa 9:32 daqiiqo oo galabnimo halkan wuxuu ku leeyahay fileka fur halkan open go filekan meesha ku yaala fur halkan waa locationka uu yaala ku fur filekan ugu tag bartiisa iyo copy full path oo ah kan inaad mid kale ka samayso hagaag haddaad u baahato mararka qaarnaysa shaqeyna waa laga yaabaa halkaas laakiin inta ugu muhiimsan waxa weeyaan detailskan meesha uu yaalo ku siinayo iyo xilliga la soo geliyay iyo fur iyo meesha uu yaalo ku fur okay haddaan halkan hadda jooga sidee u furanayaa waxaan siinayaa click bas ama waxaan siinayaa kaliya enter ayaan leeyahay bas labadaba ka aan doono ayaan sameynayaa halkan waa ka sameey karaa halkanna waa ka sameey karaa halkan click waa ka dhigi karaa halkanna click waa ka dhigi karaa meeshan kor waxaad u jeedaa in waxyaabadan kaas ku soo baxayaan all apps wuxuu ku sheegay kan midka uu yahay haddaan ku dhufto halkan hadda waxba isu saaray ma wuxuu leeyahay no result from for search lama helin buu ku leeyahay haddaan apps iraado haddaan documents iraado lama helin buu leeyahay haddaan halkan midka geometry iyo wax kale ay ku saaraya laakiin haddaan photo ku dhufto fiiri haddaan photo ku dhufto photo ayadana iso saaray maayo because waxa haystaa ma ahan folder way ma ahan file halkan markaan joogo ayuu saaraya oo documentiga ayuu ku jira ayuu leeyahay documentiga waxaana documentiga ay yaalaan halka uu PDF document library ayuu ayuu leeyahay waa kana marka fiiri library books midka sidan ay kugu sheegaya balse haddaan hadda kayga aan raadsanay aan raadiyo oo dib ugu noqdo oo aha searching ama kayga aan raadsanay aha searching dib ugu noqdo maxay soo baxay searching with strongly searching okay search artin hore uga tagno marka hore okay sidan haddaan double click siiyo ama click aan siiyo sida bartaan ayaa la igu soo furaya kadibna aniga ayaa soo furanaya oo sidii hore aan soo baranay saddexdii wadaan ku furanaa inaan iraado right click oo aan open iraado ama inaan double click siiyo ama aan enter iraado ayaan ku soo furan karaa oo sidii markaas aan u baahan doonaa hagaag halkaasi waa sida file ama folder loo raadiyo waa isla soo garanay xagee taginaa waxaan taginaa halkan ay ku qoran tahay type here to search kadibna halkan aan ku qorana magaca noogu qoran folderkeen ama filekeen noogu qoran aan tageena haddii aan bro ku qorno kaliya
waxaan ka arkaynaa horey inuu noo soo baxayo sawirkeennii oo waa kan ka soo muuqda hagaag haddii aan tago aan idhaahdo ama aan folderkii raadin idhaahdo folderkii aan raadinayo oo aan searching qoro halkan ayuu kasoo baxayaa folderkii laftirkiisii oo markaan idhaahdo open file position ku fur halkan markaan sidaa tan idhaahdo meeshii u yaalla ayaa la keenaya oo saajinaha kadibna sii fura ayaa la leeyahay hagaag ama halkan ayaa sidoo kale ka raadi karna waa idiin sheegay kasoo gudub videogiisu nagu dheeraanin haddaba balan u gudubno bal maxay tahay nuqdadana labaad oo muhiim kala soconnaa waa start button muxuu yahay start button xaggee loo yaqaanaa xaggeese weeyaan hagaag meeshaan fiiri markaan halkaas muuska saaro maxaa kuu muuqanaya halkan markaa muuska saaro maxaa kuu muuqanaya start maxaa kuu muuqanaya start maxaa kuu muuqanaya start haddaan magnifierka isticmaal hal mar haddaan magnifierka hal mar isticmaalaan kuusoo dhaweeyo fiiri maxaa kuu muuqanaya halkaa markaa joogto maxaa kuu muuqanaya start ayaa kuu muuqanaysa hagaag start markaan joogo haddaan ku dhufto start kan waan u baahanaya markasta waan isticmaalaya meelaha aan dhigto hagaag start halkan ayaan joogaa markaan start idhaahdo wax badan ayaan ka soo baxaya haddaba kan waxay meeshaan sheegtaa windowska markasta computer kugu jira ayay sheegtaa oo hadda windowskan isticmaalaya windowsku yahay qofkii yaqaan hore ayuu ka fahmaya inuu windows 7 yahay inkastoo windows 7 iyo windows 10 iskaaga dhow yihiin hagaag meeshaan waxaad uga jeedaa waxyaabo badan inay ku taxan yihiin haddaba meeshaan waxaa ku taxan calculator dhammaan aabiska computer ku jira halkan ayay ku taxan yihiin oo waa meel kale oo ka raadi kartid aabiska aad u baahan tahay ama aad doonayso markaas inaad isticmaasho haddii aan doonayo skb haddii aan doonayo visual studio code haddaan doonayo local whatsapp haddaan doonayo windows accessories haddaba midka aan rabo halkan ayaan kala soo baxaya oo meeshaanna waa meel kale oo aan ka raadsan karo tusaale ahaan hadda meeshan waxaan uga jeedaa waxaan rabaa tusaale ahaan halkan inaan soo helaan doonaya tusaale ahaan tusaale ayaan tusiinayaa waxaan rabaa google chrome inaan soo helo meeshaan ayaan tegayaa kadib waxaan qorayaa chrome haddaba waxaan kor uga jeedaa chrome ayaa laga soo saaray waxaan qorayaa waxaan u baahanahay skb ayaan u baahanahay hore ayaa la iga soo saaray meeshaan wax walba ku qorto oo computer ku jiro hore ayaa iga soo saarmayaan hore ayaan iga soo baxayaan okay aan meesheeda ku noqdo halkan waxaa loo yaqaanaa start button menu ayaa loo yaqaanaa halkan wuxuu kuu soo saarayaa recently added ama aabiskii dhammaan ee halkan ayay kugu jiraan geeska haddaa fiirid meelaha sawirro ayaa kaa muuqdo dhammaan halkan wuxuu kugu soo saarayaa waxyaaba aad u qurux badan oo muhiima haddaan rabto my officekayga isticmaalo haddaan rabo notekiina isticmaalo haddaan rabo emailna isticmaalo haddii la kuriyo xbox dhammaan waxyaabahaani skbgii halkan ayuu kasoo saaraa oo iyadana halkan ayuu kugu soo saarayaa waatan halkan scroll ayuu leedahay waa ujeedaa hagaag halkanna scroll ayay leedahay iyadana aabiska ayaa ku jira halkan waxaad ka weysan halkan hoose ayaa laga raadiya haddaan halkan tago oo meeshaan tago waan iska xiri karaa waxaan oo dhammaantood halkan oon ku dhufto bas ayay iga xirmaya haddaan rabana xabad ayaan usii kala dhex furi karaa oo whatsapp ayaan sii dhex geli karaa waxaa ku jira folderkaas whatsapp ayaa iisii baxaaya kan haddaan sii furo waxaa ku jira iisoo baxaya oo waxyaabahan ayaa dhex yaallo ku leeyahay haddaan soo tago kan aan sii furo windows system haddaan furo waxaa ku jira iisoo baxaya waxaa ku jira ku leeyahay command prompt control panel file explorer run task manager this busy windows waxaas oo dhan ayaa ku jira ayuu leeyahay haddaba halkan waa fahnay ee qaybtan yar maxay tahay qaybtan yar waa qayb yar oo muhiim ah balse wax yar aan ka hormaraya fiicnaan lahayd ayada aan usoo noqdo wax yar iconiska aan ka hormarinaya qaybtan waan ugu dabamarinaya hagaag halkan ma marka meeshan waxaan rabaa iconiskan oo casharkeena qaybteena saddexaad message start button fahanay waxa uu yahay start button waa button ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha computerka ku jira aad ka helayso wixii aad ka weysana searching ayaad ku raadinaysaa oo aad u baahan tahay oo type here to search aad tegaysaa wixii kalena start button-kaaga ayaad tegaysaa oo aad ka raadinaysaa haddaad calculator u baahanahay waa kan calculatorkii halkan ayaan calculator keensan karaa waa soo qaadan karaa meelahan ayaan ku shidan karaa computerka haddaan doono hagaag calculatorka haddaan u baahanahay click kabis ayaan siinayaa kadib maxaa iisoo baxaya calculatorka ayaa iisoo baxaya oo xisaabtan rabo ayaan gashan karaa meeshaan waatana xisaabtan doono ayaan gashan karaa oo aniga ay samaysanaya markaas hagaag halkaas waxa kugu jira waa documents ama apps-kii ama applications-kii ku shaqeynaya computerkaagu ayaa ku jira haddaba applications-kan kuwan sidee loola tacaamulaya marka ama CSS video u dheeraan haddaan rabo kuwan inaan size-kooda hadda tusaale ahaan waa aragtaa
size-koodu wuu yaryar yahay. haddaan rabo size-ka inaan weyneeyo ka war oo aan resizing sameeyo sidee sameynaya haddaan rabo resizing aan sameeyo marka hore aan geeskooda cubo resizing aan sameeyo waxaan rabaa size-keeda inaan bedelo meel la computer tagayaa kadibna right click ayaan leeyahay view ayaan tagayaa kadibna view-ga wuxuu leeyahay arrow-gii horaan kugu sheegay halkan saddex ayaad uga jeedaa arrimood mid kasta oo ku saaran yahay waxaad ku aqoonsanaysaa calaamadan ayaa kuu soo baxaysa haddaan meel ilaa right click iraado oo aan view tago kadib maxaa ii soo baxaya calaamadan ayaa kuu soo baxayda mid kasta oo kuu sheegaysa midka uu kuu saaran yahay markaas ama uu ku yahay hadda meeshaan waxyaabo badan ayaa iga muuqda large icons waa iconada soo waaweynay medium oo dhexdhexaad ka dhig small iconsna waa yaryaree okay hagaag halkan ma marka right click deh view tag kadibna large icon deh maxaad aragtaa way weynaadeen dhammaan shaashada ay qarsheen hagaag haddana meeshaan dhexda tag oo labadan dhexdooda kadibna right click deh kadibna soo tag halkan haddana waxaad ku dhufataa small icon ku dhufo maxaa aragtay aad u yaryaraadeen oo wixii dhammaan waxay noqdeen kuwa aad u yaryar ay noqdeen oo waad aragtaa wax yaryar ayay dhammaantood noqdeen hagaag bal haddana soo soco marka mediumka daangeena maxay tahay halkan ayaan ka maamulaya saan doona ka yeelaya oo sidoo hore ahayn iga dhig halkaas waxaan ku baranay size-ka sida loo bedelo okay aan hore ugu socdo ku xigsado saddexdan ka hooseyda maxay labadan ka hooseyda maxay yihiin kan wax macno weyn ma sii leh kan horta muxuu yahay kan markay jagto ii saaran tahay waxay ka dhigan tahay awood uma lihid inaad icon halkan yaala soo jiido kadib halkan dhigto oo ma laga yeelada soo qaad halkan keento ciduna ka yeeli mayso maanta hadda maanta jiidis leedahay ma geyn karaysi ma geyn karay waa arkaysaa haddaan maagada kan soo jiido halkan keen maago ma geyn karayo ma iga yeelay in halka geeyo iga yeeli maayo halkan bas intaa bas ayaa lagu cubayaa gebi ahaantood oo lama ogola inay soo dhaafaan hagaag haddii aan ka qaado hadda fiir halkan aan ka qaado maxaan sameyn karaa halkan meeshaan rabaa dhigi karaa halkan aan dhigi karaa halkaasaan dhigi karaa halkaasaan dhigi karaa meeshaan rabaa ayaan kala geey karaa waxaan aniga aysan raba ugu faraadi karaa laakiin haddaan tago kadibna aan iraado waxaan auto arrange icons ka dhig bartooda ayaa lagu wada celinaya oo lama ogola inay kala baxaan hagaag taasi waa sida iconska resizing loogu sameeyo oo size-kooda loo bedelo haddaba sidee iconska loo qarshaa marka halkani ma kadibna meeshaan halkan waan kuu sheegay oo halkani wax micno weyn ma sameynayso haddii ay alaabaha u kala dadaadsan yihiin oo sidan kale yihiin tusaale hadday sidan kale yihiin kaga qaad hadday sidan kale yihiin oo waxaa laga yaabaa qaab u kala daadsan yihiin inay uun si grid ah ay u habaydo grid maxaa laga wadaa kadibna grid haddaan iraado waxba isu bedelayaan yani waxa loogu talagalay grid markaan la iraado ama grid aan joogo halkaan joogo align icons to grid grid waxaa la yidhahdaa iconskan sida hadda u habaysan yihiin hadda ayayba grid u habaysan yihiin iconsku oo isdaba joogaan marka haddii iconadaadu ay kala hoos shaqaan ama ay dhammaantood isku kala yaacsan yihiin oo mid ku aadan uusan jirin markaas ayaa iconskaaga si grid loo habeynaya oo sidan la isu daba dhigaya okay intaas inay fahantaan filaya aan sidoo hore isku cesho daan rabaa inaan isku celiyo waxa aan diidanaa meelahan kale yaala waxaan sameynayaa right click view kadibna auto arrange ayaan taabanaya sidaas ayaa la isku arurinaya iconadan waxaan rabaa inaan iska qarsho dhammaantood aan mid ka mid ah waxaan tagayaa view kadibna waxaan tagayaa meeshan hoose ee show desktop icons ay ku qoran tahay checkta ayaan ka qaadaya halkan dhammaantaa soo weynaya hadda oo isla waa yareeyay meeshan shaashada kuma aragtid haba yaraatee wax icons xataa hoos markaad tagtid meeshan hoose kaliya iconada ku shaqeynaya oo ku furan ayaa kaaga soo baxaya halkan hagaag iconada ku furan ayaa halkan kaaga soo baxaya hagaag haddii aan rabo inaan soo muujiyo marka ka waran sidee yeelaya su'aal halkan iconadii yaalay sidee ku helaya waa su'aal ayadoo kaliya halkan aan tagayaa this bc meeshan u yaalay this bc ayaan qorayaa kaliya halkaas ayuu iga soo baxaya okay hagaag sideen ku soo celinaya marka right click kaliya dheh kadibna view tag kadibna hore waxa ka doorataa show icon show desktop icon sidan ayaa lagu soo celinayaa meeshoodi waa hagaage casharku wuu dheeraanayaa inta haddaan kasii badiyo intaas ayaan kusoo koobayaa waxaa noo balana bal sida kuwan hal mar aan ku daro kuwanna hal mar aan ku daro halkan meesha waxaad ku aragtaa inay ku qorantaa name size item type iyo data modified halkani waa sida iconada lagu sameeyo arrangingka oo loo habaynayo tusaale ahaan iconskayga waxaan rabaa inay app-tu u habaysnaan
oo magaca ugu horeeya e uu kasoo bilowdo. tusaale ahaan haddaan sidaan siiyo, sidaan fiir halkan maxaa aragtaa e haye b c d e f g h i j k e e haye k sidaas ayay isugu soo xigayaan oo ma jiro mid ka hormaraya. haddaan meesha tagaado oo halkan tagaadana oo iraado size kan hormaray midka ugu qaadka weyn ayaa usoo hormaraya oo casharka saddexaad oo casharka hore aan usoo gashay youtube-ka ayaa u weyn asaga usoo kormaraya. sababta aan tusoo intuu size-kiisu yahay waa aragtaa waa 38.1 megabyte oo u dhigantaa intan numberkan meesha kaga muuqdo oo ah 40 milyan 40 milyan waxa weeyaan .40.03 td 24.5 bytes u dhigma ayaan kaga muuqda. okay kasoo gudub. haddaan ku noqdo oo aan iraahdo halkan tago sort by oo aan tago item type, haddaan item type ku dhufto type-ka itemka iyo sida uu kala horeeyo u kala type nooca u yihiin isugu nooc yihiin la soo hormarinaya. oo halkan dhammaan wax kaga muuqda waa applications iyo pictures. hagaag haddaan halkan tago oo aan hoos tago ina date modified oo ah date-ka waxaan hadii la kuuranaya la soo geliyo meesha date ku dhufto midkii ugu date dambeeyay ayaa loo soo hormarinaya oo taariikhda ugu dambeysay. haddaan kan fiirino date-kiisa halkan ku dhufano date-ka haddaan fiirino date-kiisa fiirino kan date ma sheegay waa tana date-ka August 14 ayaa la soo geliyay 2021 30 minute ka hor ayaa kan meesha la soo geliyay. waa video hadda aan duubay tijaabo aan u duubay 30 minute ka hor ayaa la soo geliyay halkan. haddaan ka ku xiga fiiriyo ama aan kan fiiriyo ku type maaha asagu oo arki doonaa inuusan ku dhaatay ku type kaga ahayn. oo haddaan halkan fiirino muxuu ku leeyahay waxa la abuuray arbacadii ayaa la abuuray August 12 bisha ayaa la abuuray August 12 ayuu ku leeyahay date-ka wada jeeda oo markaan casharka hore duubay. hagaag intaas ayaan kusoo koobayaa casharkeeni maanta. waxaan u maleynayaa inaan xaqiijinay dhammaan gooliskeennii oo aan baranay sida loo qarsho, sida loo soo muujiyo, sida loo research gareeyo, sida loo habeeyo. hal wax ayaa ii dhiman oo qurax aan ku daro. markaan tago start button-kayga aan tago oo halkan aan imaado start button-kayga aaway halkan aan ku dhufto meesha maraan ku dhufto halkan waxaad ku aragtaa 3-4 icon isdaba jooga ayaa aragtaa. wax yar aan gaabiyo hagaag wax yar aan gaabsho waxaan ku daro hagaag. halkan markaan imaado oo aan ku dhufto halkan waxaad aragtaa 4 icon isdaba joogta. haddaba balan fiirino mid u koreeyaan ka soo kan aan ka bilan oo hooseeya kan muxuu yahay. dadusha aan korka ka saaro maxaa ku soo muuqanaya power. haddaan ku dhufto maxaa ku soo baxaya saddexdan option ayaa ku soo baxaysa. haddaan ku dhufto saddexdan option ayaa ku soo baxaysa haddii aan ku dhufto. kan muxuu yahay sleep. maxaa sleep laga wadaa halka ka akhri. the PC stays on the boot uses lowest power ayuu ku leeyahay oo computerkaagu hoos ayuu waseexan doono. computerkaaga lagu jiifinaya oo computerkaagu ku damaya camal isagoon damin oo aan caadi u damin ayaad computerkaaga sleep garaynaysa. hagaag halkan maxay tahay shutdown. waxaa lagu yiri close all apps and turn off your PC. computerkaaga waa iska daminaysaa. halkan maxay tahay close all apps and turn off PC and then turn on. dib u soo shidmi doono oo waa restart. hagaag maxaa ku xiga hagaag intaan aan iska daayo halkan maxay tahay waa setting-giga oo waa xarunta computerka laga maamulayo. waana xarunta ugu weyn ee laga maamulo computerka inta u badanna ay ku jiraan dhammaan computerka sida haddii dheed la bedelayo haddii hawlka laga qabanayo. haddaba tan u dambaysa halkan maxay tahay meeshan ayaduna waa pictureska oo waa sawirada ayaa lagu soo muujinaya oo lagu geenayaa meeshii kuugu jireen iyo meesha adee la kuuran yahay and this PC adoo ku dhufta ka la mid tahay oo PC-ga ayaa lagu geenayaa inta badan pictureska meesha ku jiraan ayaa lagu geenayaa. halkanna maxay tahay waa documentiska oo haddaan ku dhufto adina documenti ayaa la geenayaa oo meesha documentiyada igu xariisnaayeen. haddaan meeshaan waxay tahay halkan markaan ku dhuftana waxa ii soo baxaya saddexdan arrin oo ah change account setting-giga account qofka iska baad. marka korkeeda tago maxaa soo baxaya intaan ku dhufan korkeeda markaan tago maxaa soo baxaya fiiri markaan muuska dulgeeyo maxaad u jeedaa admin ayaad arkaysaa. sidaan filaayo inaad u jeedaan u maleynayaa. haddaan muuska dulgeeyo admin ayaa soo baxaysa. markaan ku dhufto admin waa magaca uu hadda computer ku shaqeeyo. change account setting account-ka setting-giga oo admin ah iska soo bedel iska log garay sign out oo ka bax. haddaan log iraado maxaa dhacaya the computer will log out. computerka sidan ayuu ahaan doonaa oo xaaladan ayuu kusoo noqon doonaa oo wuxuu noqon doonaa computer aan la isticmaalin laga baxay. inta ayaan kusoo koobayaa casharkeennii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. mahadsanid.